kadib markii uu soo ifbaxay nurka diinta islaamka uuna rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu la jahray diinta islaamka faar qurayshna ay bilaabeen inay cadaabaan saxaabada kuwadii danta yaraa ayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu amray saxaabada qaar inay u hijroodaan ardul xabasha maadaama halkaas uu joogay boqor caadil ah oon agtiisa cidna lagu dulminaynin waxaa la sheegaa in saxaabada qaar ay kasoo degeen magaalada saylac ee soomaaliya halkaasina ay ku faafiyeen diinta islaamka sidaas ayna soomaaliya waxay ku islaameen seef la'aan tan iyo markaasi waxaa dalka soo maray boqoro iyo hogaamiyayaal kala duwan oona ku dhawaaday inay jebiyaan boqortooyadii xabashida ee kumanaanka sano soo jirtay oo xilligaasina ay mid aad u awood badan oona rabtay qabsashada dhulalkii soomaaliya sida saldanadii cadal ee uu hogaaminayay imaam axmed gurey waana si qayahan uga hortagtay boqortooyadii xabashida kana dhigdhisay fikirkoodii ahaa gacan ku dhigidda dhulalkii soomaaliya waxuuna islaamka ku faafiyey geeska afrika ee sidoo kale halyeegii soomaaliyeed ee sayid maxamed cabdulla xasan oo asagana si aan gambasho lahayn uga hortegay gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida iyo sidoo kale jaale maxamed siyaad barre oona ahaa dhise haddana dumiye dalkii uu muddada dheer dhisayeyna ka tuuray god dheer oona u horseeday mugdi iyo musiibo baahsan oona ilaa maanta uusan ka soo waaqsan saamayntiisii maadaama uu ahaa keligii taliya aad u necab kuwa ka fikirka duwan hadda uu muuqaalkani kooban ayaa ku soo qaadan doonaa hadduu eebbaweyne idmo kuwa ka mid ah haliyadii soomaaliyeed kuwaasi oona soomaalida badankooda aysan aqoon taariikhdooda axmed ibraahim qaasi ayna soomaalida u taqaano axmed gurey waxa uu dhashtay sanadii 1507 ee soomaaliya waana suldaankii boqortooyadii cadal ee muddada dheer la dagaalamaysay boqortooyadii xabashida iyo kirishtanka waxauna ku dhawaaday inuu jibay boqortooyadaasi kumanaanka sano soo jirtay waana hogaamiyihii ugu horeeyay ee sameeyey isbahaysi looga hortegayo kirishtanka isagoo mideeyey hindiya masar turkiya iyo soomaaliya waana kadib markii uu dhintay boqorkii xabashida ee najaashi waxaana geeska afrika ku faafay oo ku xoogeystay kirishtanka soomaalidana waxay la dagaalameen kirishtanka dagaalo waaweyn oo wax ka bedelay taariikhda saldanadii ifad oo ahayd boqortooyadii ka horreysay boqortooyadii cadal ayaa wax ay dagaalo waaweyn ay ku qaadeen boqortooyadii xabashida iyo kirishtanka kadib markii ay dhacday boqortooyadaasi waxa ay maaday saldanadii cadal taasi oo xoogeystay markii uu hogaaminayay imaam axmed gurey qarnina ma uusan dhammaanaynin ilaa wax ay ahayn kuwa la dagaalama kirishtanka taasi oo rabay inuu diintiisa uu ku faafiyo geeska afrika imaamkana waxa uu kula jiray dagaalo muddo dheer socday waxa uuna mideeyey masar hindiya turkiya iyo soomaaliya waxuuna ku dhawaaday inuu cirib tiro boqortooyadii xabashida waana haddii uusan celin lahayn ciidamadii gurmad ahaanta ay ugu soo direen dowladdii taasi oo ahayd mid ka mid ah khaladaadkiisii waxaana dhacday arrin uusan filanaynin waana kadib markii uu Boortaqiiska uu dib ugu soo laabtay dagaalka weliba markaani waa ay ka duwaneed sidii hore waxaana soo ifbaxay casriga qoryaha imaamkana waxa uu ka hortagay asagoo u dagaalamaya hubkii hore allah u naxariistay imaamka waxa uu dhintay sanadii 1543 waxa uu ahaa imaam hogaamiye abaanduule iyo sheekh diinta islaamka ku faafiyey geeska afrika waxayna carabta ku sifeen inuu u dagaalami jiray sida saxaabada oo kale oona in badan oo ka mid ah dadka soomaalida aysan wax ogeyn taariikhdiisa sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhashtay 7 abriil 1856 waxa uu ximdiyey yaraantiisii qur'aanka asagoo 9 sano jir ah sayidka markii uu soo weynaaday ayuu waxa uu cilmi u doontay magaalada Makka oo xilligaas ay xaruntii cilmiga iyo magaalooyin kale oo dhowr ah markii uu ku soo laabtay dalka sayidka waxa uu cunto miisay sidii uu gumaystaha ugu faafinayo dalka gudihiisa diintiisa waxayna ka furan gumaystaha gudaha dalka sida ay dadka Soomaalida ay ku barayaan diintooda waxaana jirta mid ka mid ah shirkooyinka ugu caansan ee laga soo wariyay sayidka xilligii gumaystaha maalmaha ka mid ah uu arkay sayidka cunug yaris ah markaas ayuu weydiiyay magaciisa ninkii ayaa ku yiri waxa la yiraahdaa John sayidka ayaa ku yiri magacaaga orana maxaa uu ahaa nugii ayaa ku yiri waxa la oran jiray Cali taasi oo sayidku abuurtay sumad gumaysidiida waxauna bilaabay sayidka oo la ugu hortagayo gumaystaha waxauna aasaasay ciidamadii daraawiishta oo la dagaalamayay gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo kuwa xabashidaba heer uu gaarsiiyay inay diyaarada ay ku soo weeraraan oo Soomaaliya ayaa noqotay sanadii 1920 wadankii ugu horeeyay Afrikaana ee lagu weeraro diyaaradaha dagaalka dagaaladii uu sayidka la galay gumaystaha waxa ugu caansanaa dagaalkii uu galay 1913 ee la magac baxay dhul madoobe oo uu ka tiriyay gabaygiisii caanka ah ee Kufil Allah u naxariistay sayidka waxa uu dhintay sanadii 1920 maxamed siyaad barre waxa uu ahaa iyo ugu xukunka dheeraa ee soo maray dalka wadani dalkiisa gaarsiiyay heerkii ugu sareysay xilligaasi oo kor u qaaday dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka warshadaha waxbarashada wadooyinka iyo dugsiyada dhanka kale waxa uu ahaa keligii taliye aad u necam oo ka fikirka duwan waxa uu dalkii muddada dheer dhisayay u horseeday musiibo iyo mugdi baahsan uusan ilaa maanta ka soo waaqsan saameyntiisii maalin cadna
dalkii uu muddada dheer isagii ka tuuray god dheer. Jaale Maxamed Siyaad Barre taariikhda uu dhashay si rasmi ah looma oga maadaama uu ku dhashay baadiyaha dalka asagoo yar iyo waalidiintiisu geeriyoodeen. Wuxuuna la noolaa adeerkiisii Xirsi Barre ilaa uu asagana uu ka dhintay markale ayuuna Siyaad Barre waayey adeerkiisii. Allah u naxariistee Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu ahaa dhise haddana dumiye xukunkiisii keligii talinimada ayaa wax walba u horseeday dalka. Muuqaalkii aad soo daawateen waa maqaal aynu ku soo ururnay qayb ka mid ah haliyadii Soomaaliya ugu caansan. Haddii uu jilif aan ka tagnay inuu warab qaybta hoose ee faalada. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay qaabkii aan kugu soo gudbiyaa muuqaalkaani. Haddii aad weli nagu soo birinna waxaan rajeynayaa inaad nagu soo birto. mahadsanidin.